munaasabadan oo ahayd mid lagu weyneenayo xuska dhalashada nabigeena Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee ay ka qayb galeen mashaayikh kala duwan iyo wasiirka garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliya ayaa waxa soo qaban qaabiyay muassasada Macalin Nuur iyo Xaaji Cabdirashiid Khaliif waxaana culimadii ka qayb gashay xafladii halkaasi kaga warbixiyeen taariikhda dhalashada nabigeena iyo halgankii uu soo maray iyadoo xafladaasi lagu casuumay culimadiin ka soo jeeda dalka Masar. Xaaji Cabdirashiid Khaliif shiro ugu horeen ka hadlay xuska dhalashada nabigeena ayaa ummadda Soomaaliyeed u rajeeyay in sanadkan kiisa kale ay meel qura ku wada xusaana maalintan oo kale maanta waxaan leeyahay iyadoo sanadka dambe Soomaaliya oo dhan iyadoo lagu wada xusaayo Allah na gaarsiiyo waxaan kaloo leeyahay inteena sanadkii dawlad wada joogtay maanta wada joogta oo Ilaahay cimris iyo balaayooyinka iyo waxa ka dhacay Ilaahay go'tiyo sanadkana Ilaahay xadaa iyo dhibaatada iyo waxa jira Allah sanadka dambana anoo sidaan oo dhan Allah isku keenay sidoo kale culimadii halkaasi ka hadashay ay kamid ahaayeen Sheekh Yuusuf Cali Caynte gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed Sheekh Nuur Baaruud Gurxan gudoomiye ku-xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyay siirada nabigeena naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo ahmiyadda ay leedahay weynaynta xuska dhalashada nabigeena Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa la isugu yimid wax kala ma aha waa in la akhriyo siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam وإن أخري صلى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي الله أخريه سيدنا سنة ذكرين وحاول القرآن كالسنة النبي تطبيق وعملي قوي نبي محمد على شديد وحي كان ينتهي الدين كانوا مد كتر إنه من وين كيف أصلا كان والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلهي وفي صورة رسول في صورة لكن أميين هاي أحرار هاي وحدة أنقرني كسرني. ugu dambeyntii wasiirka garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliya Mudane Cabdilaahi Abyan Nuur oo isna munaasabada hadalka jeediyay ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta inay xoog saaraan xuska dhalashada nabigeena suuban isagoo Xuseen aad ugu faraxsan yahay sida gobolada dalka looga xusay dhalashada nabigeena Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaan kale xusuusinaysaa xafladan ay boorka jafo tahay cusboonaysiinta dacwada islaam inta la cusub mar kale xogaa markii la shaqeeyo waxay u baahan tahay in la isguuleeyo dowladdeena waa dowlad ahlu sunna wal jamaa